السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada cashir ku saabsan barashada HTML. HTML maxay tahay? HTML waxaa loo soo gaabiyey maxaa la dhahayay waxaa loo soo gaabiyey maxaa la yidhaahdaa hypertext markup language ayaa loo soo gaabiyey. HTML ma aha programming language. waxa weeyaan waa markup language. Programming language waxa weeyaan waa sida maxay ahayday javascript, php, java iyo wixii lamid ah. adu waa wax logic leh oo maaragtay hadduu if oo kale ama hadduu waxani dhaco waxaa samee oo kale wax adigu wax lagu xalinayo, problem lagu xalinayo oo kale weeyaan. kana waxa weeyaan waa markup oo tags ama calaamado unbaad maaragtay qoraalkaaga ama waxaad sameynaysaa dhinacyada ka dhigaysaa kuwaasoo maaragtay wax iska maaragtay aan ahayn maaragtay wax logic u baahan. waxaa kaliya maaragtay haddaad rabtid inaad qortid HTML laba wax bas ayaad u baahan tahay. waxaad u baahan tahay text editor iyo maxaa la yidhaahdaa web browser sida Google Chrome, Mozilla iyo wixii lamid ah. labadaa wax bas baad u baahan tahay. kabacdi maxaa la yidhahdaa HTML toos ayaad u qori kartaa. HTML waxa weeyaan yani waa maaragtay luqad aasaasi u ah maaragtay website-dada sameyntooda. website kasta ood gashid ama aad fiirisid wuxuu ku samaysan yahay ama structurekiisa ama qaab dhismeedkiisa lagu sameeyey waa HTML. haddii aad rabtid inaad website aad samaysid waa lagama maarmaan. marka HTML kaleeta waxaa kale iyadana HTML waa iska maaragtay waa markup. markaas la-aanteed waxay u baahan tahay markasta maxaa la yidhaahdaa luqadda la yidhaahdo kale CSS la yidhaahdo oo insha allah baran doono. taas oo loo isticmaalo yani in maaragtay lagu qurxiyo maaragtay website-dada. laakiin HTML keligeed waxa weeyaan de waa maaragtay wax badan oo maaragtay indhaha soo jiita malahan ama yani wax style toona malahan. marka waa iska foolxumo. marka yani laakiin waa muhiim yani inaad maaragtay aad fahantid. course-kana waxaan ugu talagalay maxaa yeelay waxaa la yidhaahdaa dadka maaragtay hadda raba inay bartaan maxaa la yidhaahdaa HTML ayaan ugu talagalay. marka hadda waxaan sameynaynaa waxaan isla fiirinaynaa maxaa la yidhaahdaa tagska ama calaamadaha aasaaska u ah maxaa la yidhahdaa luqadda HTML. okay marka waxaan sameysanaynaa maxaa la yidhaahdaa folder. folder ayaan sameysanaynaa. waxaan bixinaynaa HTML iska dheh. horta waan khaldanahay. make directory ayaan leenahay. HTML waxaan sameysanaynaa hal file oo ah HTML. okay marka waxaan ku furaynaa waxaan isticmaalayaa text editor la yidhaahdo Visual Studio Code ayaan isticmaalaynaa. kaas ayaan ku furaynaa. waa kana editorkeena noo soo baxay.
sorry meel khaldan ayaan ku jiraa. inaan folderkeena galay ahayd folder khaldan baan ku jiray. cd waxaan leeyahay to html and index.html. markaas haddaan furi karaa marka waxa ugu horeeya fiirinayna waxaa la yidhaahdaa waa tagsna waxa weeyaan waa calaamada maxay ahayday u qorma maxay ahayd sida maxaa la yidhaahdaa calaamada xisaabta marka lesadan iyo calaamada ka yar iyo ka weyn oo kaleete ayaa maaragtay oo mid lagu bilaabayo mid lagu soo xidhaya ah. kama soo qaado haddaan dhahno html oo kale ama adugu waa calaamadan maxaa la yidhaahdaa calaamadan lesden kabacdi waxaad gelinaysaa kale b baad gelinaysaa waa tag baa la yidhaahdaa. iyo maxaa la yidhaahdaa iyo calaamada ka weynta oo kale. marka waxaa kaloo leedahay hadda bdaas oo kale ama paragraph markaa rabtid inaad qortay oo kale waxay leedahay qaybtii lagu xidhay lagu bilaabayay iyo qaybtii lagu soo xidhay. marka tan lagu soo xidhaya waxay wadataa calaamadan maxaa la yidhaahdaa slashta ayay wadataa ama calaamada gudban. marka qaab dhismeedka hadda html oo kaleeta haddii aan rabno inaan aragno oo kaleete qaab dhismeedka asaasiga html waa noocan qaab dhismeedkeeda maaragtay asaasiga ama basiga noocan weeyaan. marka aan maaragtay iska delete garayno oon xabad u fiirino waxaan kan ugu horeeya maxaa la yidhaahdo waxa ugu horeeya ood markasta ku bilaabaysaa waa doc type. waxaad leedahay calaamada maxaa la yidhahdaa lesden iyo calaamada exclamation mark. ka doc type waxa weeyaan waa noocaas weeyaan. marka waxay ku sheegaysaa inaynu isticmaalayno html5. marka waxaa jira vershino horoo badan oo kasoo horeeya sida html4 oo kale iyo vershino kale noocaas oo kasoo horeeya jira. marka doc typeka wuxuu ku sheegayaa tag ma ahan wuxuu ku sheegayaa kali ah meesha inaad html5 la isticmaalayo. tag kale kusoo xiga waxa weeyaan maxaa la yidhaahdaa head weeyaan. marka hadda head oo kale markaan qoro extension ayaa maaragtay ac dhamaystirayo extension aan kusoo download garaystay maxay ahayd maxaa la yidhahdaa text editorka. marka headka waxaa soo gala maxay ahayd waxyaabaha maaragtay sida meel tag oo kale css markaad rabtid inaad html-kaaga ku xidhido kale waxyaabahaas dhan ayaa soo gala aduga waxaan la arkaynin hadda website markaad booqato oo kale waxaan la arkaynin oo kale weeyaan. markasta halkan oo kale waxaa ku jira title oo kale ama ciwaankii ciwaanka hadda waxaan qoraynaa my website aan qoraynaa. okay markaas titlekani haddii aan extension la yidhahdo waxaan ku furaynaa live server
هذا ماشي مركان تايتل قرري وحانو صوبها محالي هذا وانك وكسر كاس كصوبحي my website وتايتل كان halka ku qoray marka heerka intaas ayaan rabnay inaan ka fiirino waxaa ku soo raacaya heerka waxaynu ilownay waxaan dhahaa HTML tag kaasoo maaragtay lagu wareejinayo tagiska kale oo dhan shaqadiisa isagu waxa weeyaan tagiska kale ma lagu wareejinayaa tagiska kale oo dhan isaga ayay maaragtay ayay gudaha soo galayaan kabacdi waxaad tagin kaleetan ka hadlayna waxa weeyaan waxaa la yidhahdaa body ama waa qaybta markaad hadda website-ada aad maaragtay geshida oo dhan waxaad arkaysid oo dhan maaragtay indhaha waa qabanayaan oo dhan wixii lagu qori lahaa weeyaan waxaa kaloo tag kale soo raaca waxa weeyaan waa ciwaan oo kale markaad samaysid head ilaa oo ah maaragtay ilaa heading oo maaragtay ilaa u dhaxeeya wuxuu u dhaxeeyaa 1 to 6 ayuu u dhaxeeyaa yani waa say u kala waaweyn yihiin kaba soo qaadataan hadda aan heerawankaa firin oo kale aan dhahno ciwaanka koowaad kaasi ciwaanka koowaad meesha noo soo baxay kana maxay ahayd markaas ayaan kubiyeynaynaa 6 jeer ayaan kubiyeynaynaa sababta waa heerarku waxaa weeyaan wuxuu yahay 6 oo okay marka kan ayaan bedelaynaa kan waxaan ka dhigaynaa 2 ayaan ka dhigaynaa 3 ayaan ka dhigaynaa 4 5 6 marka haddii aan haddaan dhahno se haddaan dhahno say u kala waaweyn yihiin ayaan arkaynaa say u kala waaweyn yihiin halka soomaalkiisa hadda say u kala waaweyn yihiin way dhamaantood marka haddaad aragtid inaad fadhiyo waaweyn kala aragtid heerwan ayaad haysaa ta kusoo xigta waxa weeyaan maaragtay waa 2 oo kale marka madaxa ama ciwaanka halkaas ayaan kaga baxaynaa waxaa noo soo raaco tag la yidhaahdo maxay ahayday b tag ama paragraphkana waa hadda markaad wax sharaxay sidoo kale taggan ayaad isticmaalaysaa marka qoraal baan bixin ayaan iska isticmaalaynaa waxaan ka dhigaynaa qoraal oo khiyaali ah maaragtay ayaan gashanaynaa okay marka haddii aan haddaan save garayno haddana waxaa noo soo baxay markaas paragraphkaas ayuu noo soo baxaya qaybta labaad maaragtay aan ka hadlayno waxa weeyaan maxaa la yidhaahdaa
comment oo kale comment ayaa iloobi comment markaad rabtid yani waa wuxuuna page kasoo baxaynin aad rabtid hadda aad koorkaaga aad rabtid oo kale ama qoraalkaaga waxaad qortay koorkaaga oo kale aad rabtid aad ku sharaxdid laakiin aadan rabin inuu website-kaaga usoo galo oo kale waxaad dhahaysaa calaamada lesson haddana exclamation mark iyo dash dash markaas halkan waxaan ku qoraynaa markaas waa paragraph koowaad paragraph koowaad kale marka haddaan hadda sef dhahno meesha maaragtay wax kasoo baxaya maahan okay commenting haddaan halkan kaga tagno waa sababta html comment u sameynaysid hadda javascript iyo css waxay leeyihiin nooc kale oo commentiga loo sameeyo laakiin hadda kaas kama hadlayno waxaa kale oo jira kasoo qaada haddii aan comment ayaan waxaa la yidhaahdo inline iyo block elements marka elementyada labadana u kala baxaya hadda sida maxaa la dhahaa sida div heroin iyo btag iyo form elementskan aad arkaysa oo kale waxaa la yidhaahdaa waa block elements weyn waa block elements okay waxaa kugu soo xigay inline block inline elements marka wada soo inline iyaguna waxaa weeyaan sida maxaa la dhahaa span iyo maxaa la yidhaahdaa image tag iyo anchor tag waxaa weeyaan marka waxay ku kala duwan yihiin farqiga u dhexeeya wuxuu yahay muhiim u tahay aad ogaatid block elements blockku waxay ku bilaabayaan line cusub markasta waxaa kale balaca page oo dhan balacana way isku kala bixinayaan inline blockna waa kasoo horjeedaa oo waxaa weeyaan isagu waxaa weeya isagu line cusub kuma bilaamayo waxaa kale wuxuu qaadanayaa balaca inta uu dheerkiisu balaciisu yahay bas ama intuu u baahan yahay keliya ayuu isticmaalayaa marka halkaas waxaan comment ayaan gelinaynaa
save dhahno hadda waxaan commentiga galin oo dhan pagekeena kama soo baxaya. pagekeena hadda waa iska sidiisii. waxaa kale aan ka hadlaynaa waxa weeyaan waxaan ka hadlaynaa maxaa la yidhaahdaa links. waxaan ka hadlaynaa waxaa la yidhaahdo links, ama markaad rabtid inaad website-kaaga ama maaragtay ama page laba page oo website-kaaga kamid inaad isku xidhid oo kale, markii mid lagu dhufto inaad midka kale qofka aado oo kale markaad rabtid, ama markaad rabtid inaad wax meel kale u dirtid oo kale, ama website kale sida Google ama meel kale wax external markaad rabtid inaad dirtid ayaa linkiga la isticmaalaa. marka waxaa elementiga aan filayn waxa weeyaan waa oo loo soo gaabiyey anchor tag. marka hadda meeshan xareeftaas ayaad ku qoraysaa kaba soo hadda haddaan haysan oo kale about page oo kale, page kale laba page kale hadduu website-keenu lahaa oo kale, sidan ayaan ugu xidhaynaa about.html.com. marka hadda about ayaad ku qoraysaa kabacdi link ayay noqonaysaa. okay, markaas linkigaas ayay noqonaysaa. marka haddaan ku dhufano markaan hadda ku dhufano oo kale wuxuu noo dirayaa maxay ahayday pagekaas ayuu ku dirayaa. kale waxaad geli kartaa oo kale halkan yani wax website-kaaga ka baxsan oo kale waad u diri kartaa, kaas oo markaad qoraysid aad isticmaalaysid https ayaa isticmaalaysaa. google.com haddaan dhahdo aan save garayno. ayaan dhahaynaa. marka meesha haddaan google-ka ku dhufano google ayaa noo soo baxa. marka hadda waxaad rabin yani uu hadda website-kaaga aad ka baxayd oo kale attribute kale ayaa jira oo la yidhaahdo target baa la yidhahdaa. kaas oo maaragtay page cusub ayuu ku furaya marka linkiga lagu dhufto. marka hadda markaan linkiga ku dhufto oo kaleete page cusub ayuu furayaa. keeni horena waa kaasuu noo furan yahay, kana waxa weeyaan page cusub ayuu ku furayaa. markaad wax website-kaaga meel ka baxsan oo kale markaad rabtid inaad isku xidhiidhisid website-kaaga maaragtay targetka ayaad isticmaalaysaa. okay, waxaan kaloo ka hadlaynaa waxa la yidhaahdo attributes. attribute maxaa la dhahaa? attribute waxaa weeyaan hadda sida linkigii oo kale inaad soo baranay, hadda xareeftaas oo kale waa attribute weeyaan. targetkaas oo kale hadda aan linkiga kusoo aragnay iyadana waa attribute. marka html waxaa weeyaan elementyadeedu attribute badan ayay leeyihiin. marka attribute marka noocaas weeyaan. waxaa kaloon ka hadlaynaa maxaa la yidhaahdaa comment aan samayno list ayaan ka hadlaynaa. listina waxaa weeyaan siduu magacuba kuu sheegaya waa markaad rabtid inaad wax list galay. sidoo kale laba nooc ayaa jirta. mid waxaa weeyaan waa an order list
an order list iyo order list ayaa jira. markaas an order list waxa weeyaan waxaa loo soo gaabiyaa UL hadda UL-shaas weeyaan maaragtay taggaas weeyaan. waxaa kaloo wadataa markasta ay wadataa keligeed iskama socoto li wax la yidhaahdaa ama list item oo kale ayuu wataa. an order listiguna iyaguna waa saas oo kale isku waxun bay samaynayaan laakiin waxay ku kala duwan yihiin wax yar bay ku kala duwan yihiin. kan OL weeyaan an order listigu isaguna li buu wataa marka badanaa waxaa loo isticmaalaa navigationka markaad website navigation sameynaysa sidoo kale ayaa la isticmaalaa maxay ahayd list elementskan. marka haddii aan fiirino kale hadda navigation markaad sameynaysid ayaa badanaa la isticmaalaa. services laakiin markasta waxaa lagu qurxiyaa CSS ma ahaan inaad HTML isticmaalaysid. kana waxaan ku qoraynaa isagana isku waxaan ku qoraynaa yani farqiga u dhexeeya rabaa inaan aragno. okay markaas farqiga u dhexeeya wuxuu yahay dotska ayuu wataa ama dhibcahan dot ah oo taasi waa an order listiga oo kaasi waa midka badanaa la isticmaalo markii yani navigation la sameynayo oo kale. kadib CSS iyo waxaas ayaa waxa laga tirtiraa oo maaragtay lagu hagaajiyaa. kalena number ayay wadataa waa order listiga. intaas kadib waxaan baranaynaa tag la yidhaahdo maxaa la dhahaa horizontal ama waa xariiqin maxaa la yidhaahdaa dheer oo kale. waad haddii aan safe dhahno arkana xariiqintaas weeyaan. halkan si page korna waxaan sameynaynaa kala meeshan waxaan rabay inaan sameeyo si aad si fiican ugu aragno meeshan style ayaan leenahay. waxaan ka dhigaynaa margin si aan maaragtay u wada aragno maxaa la yidhahdaa meeshan aan rabay inaan kor u qaado si aad aragtaan. marka calaamadan horizontalku waa lineka xariiqa dheer ayaa la yidhahdaa horizontal line markaad isticmaaliskaas weeyaan. okay adam kabacdi
qaybta kale noo soo raacda waxaa weeyaan waa markaad rabtid inaad table aad rabtid inaad samaysid sidoo kale adoo isticmaalaya html. marka waxaan baranaynaa sida loo sameeyo table. marka table, first of all table ayaad leedahay oo tagga koowaad, kabacdi waxaa soo hoos galaya laba qaybood, table headkii iyo table body. table headku markaas wuxuu haystaa table row. table rowan waxaa kusii guda jira maxaa la yidhahdaa table headkii ama headkaas. marka waan ku biirinaa waxaa leenahay magac sawirkan waxaa weeyaan THMS. marka waxaan ku biirinaa 100 times email that data. kabacdi waxaan fiirinaynaa boodiga tableka t boodigiisa. kana waxaa weeyaan sababna waa row bilaabmaya, rowna waxaa kusii geli jira td ama table data. table data waxaa leenahay magaca leenahay koowaad, emailka waxaa weeyaan ali@gmail.com oo kale. daadana waa 35 33. okay. marka tiafan ayaa maaragtay laba jeer ku biirina and then okay. marka haddaan save karayno waa kana tableka waa laba magac email daada. waxa weeyaan yani hadda hadaad rabtid markaad website sameynaysid badanaa waxaa la isticmaalaa CSS oo lagu qurxiyaa, laakiin email table oo basic sida HTML loo sameeya waa noocaas. okay. marka halkan haddana waxaa noogu sii xigi doona maxaa la yidhaahdaa waxaa noogu xigi doona tableka waxaa noogu xigi doona form. sida loo sameeyo maxaa la yidhahdaa form. markaan commenti waan sameynayna. markasta commentiga waxaa loo isticmaalaa ay ku wanaagsan tahay, yani waxaad sameynaysid ayaad ku qoraysaa ama wuxuu koorkaagu macnihiisa aad ku macnaynaysaa. marka hadda form ayaan sameynaynaa meeshan. okay. form marka waxaa weeyaan wuxuu leeyahay taggiisu waxaa weeyaan waa formtaas weeyaan. markasta wuxuu wataa action
action tani waxaa weeyaan yani meesha hadda uu aadi lahay oo kale serverka sida index.php oo kale adigu wuxuu la xidhiidhaa yani server sideka ama maxaa la yidhaahdaa markaad hadda pagekaaga aad rabtid inaad backend u dirtid oo kale ama database oo kale ama serverka ayaa action attribute-ka la isticmaalaa hadda inagana khuseeya maahan midka kale asaguna la isticmaala waa method oo markasta wataa formku badanaa form yani waxaa loo isticmaalaa in information la diro soo maaha markaas wuxuu wataa attribute-ka markasta kan waxaa weeyaan badanaa sida maxay ahayd post oo kale post waxa weeyaan hadda markaad database aad maaragtay aad u diray sidoo kale information oo kale weeyaan marka waxaa la yidhahdaa tag la yidhahdaa jira label for a name marka labelka waxaan siinaynaa hamad oo kale magaca ku qoraynaa kabacdi tag kale waxaa jira isagoo la yidhahdaa input typekiisa input noocyo badan buu leeyahay marka waa inaad typekiisa sheegta marka hadda kani waa qoraal oo kale waxaa jira name oo kale namekana waxaad u baahan tahay markaad hadda server side programming language kale markaad isticmaalaysid ayaad nameka isticmaalaysaa laakiin hadda waxba wax inaga macno badan aan noola sameynaya marka haddii aan idhaahno save waxaa noo soo baxay magacii iyo meel aan magac ku qori karayno marka meeshan waxaan siinayaa tableka iyo formka waxaan u dhexaysiinaynaa break breakana waxaa weeyaan isaguna waa tag kale oo markaad rabtid inaad waxoogaa aad qoraal kala fogeysid oo kale haddaan save dhahno hoos buu soo yara degay kii kale hoosta ka iman jira qoraalkii hore aan soo sameynay okay marka haddana kan haddii aan hadda copy idhaahno labelkan iyo magaca iyo meesha wax lagu qorayay mar labaad halkan aan ku bedelo kale email halkan folder aan ka dhigaynaa email ayaan dhigaynaa text waa kan laakiin waa email weeyaan halkan waxaan ka dhigaynaa email marka inputku waxyaabo fara badan buu leeyahay markasta waa inaad attribute-kooda saxaad ku qortid marka haddii aan idhaahno hadda save aan idhaahno marka emailkina noo soo baxay marka hadda meeshan waxaa kaaga muuqanaysa inay elementskan ay yihiin inline elementskan kasoo hadalay oo kuwa iswada dabagalaya ay yihiin marka haddii aad rabtid inaad maaragta blog aad ka dhigtid oo kale waxaad isticmaalaysaa blog level element oo kale sida div marka hadda dhiftan ayaan ku kala qaybinaynaa dhiftaas ayaan ku kala qaybinaynaa kana dif ayaan ku wareejinaynaa mid kasta dif ayaan ku wareejinaynaa waxaas labada qaybadaas wata safeynaynas kaas marka hadda waxaa weeyaan waa hoos ayuu soo degay marka haddaad rabtid inaad qorxo sidoo kale
CSS ayaad isticmaali kartaa, waad ku hagaajin kartaa maaragtay formkan. aan kale columns gelino CSS ayaa lagu qurxiyaa. Okay. marka waxaa jira mid kale oo la yidhaahdo formka isagana element kale oo la yidhaahdo waxaa jira maxaa ahayd selection ama select. soo qaado xanaana kale nin weelkana halkan waxaan gelinaynaa option tag la yidhaahdo ayaa la isticmaalaa. halkana waxaa weeyaan nin weeyaan halkan waxaan leenahay gender oo kale gender. Okay. option kan waxaan gelinaynaa nin halkan waxaan gelinaynaa dumar. Okay, waxaan hadda save nidhaahno waxaana siinayaa drop downka aad arkaysid oo aad kala dooranaysid kolba nin iyo naag midkaad aad ku qoraysid. Okay. marka haddaan halkaan form kaga baxno tag kale rabnaa inaan ka hadalo waxaa weeyaan maxaa la dhahaa waa image ama sawir oo kale. image markasta waxaa la socda sourcigaas. hadda marka taggani waxaa weeyaan waa self close tag, waa tagisa soo xidhaya, uma baahno qaybtii kale xagga lagaga soo xidhi lahaa oo kale, waa isagaa is xidhaya. waxaanad u baahan tahay markaste inaad sawir meesha soo gelisid ama adres aad soo gelisid. kabso qaadba haddaan sawiraan kasoo qabsano maxaa la yidhaahdaa internetka kabso qaadaan ku qorro kale geel wuxuu qalin Soomaalida oo saaran maanta. Okay, markaas waxaan qori karaa camel neefkeeda meesha jooga. Okay. neefkeeda waa qurxa weeyaan. copy image address aan leenahay. noo soo saaro. marka sawirkii noo soo qabtay. marka sawirkii sawir weyn weeyaan. daaribta inaad hadda yaray sidoo kale wuxuu leeyahay
attribute-ka waxaad isticmaali kartaa isagana wordsigiis oo kale. wordkaad isticmaali kartaa ama balaca halkan waxaad qori kartaa marka waxaad rabtid oo kale. hadda 100 pixel oo kale aan leenahay, laakiin markasta waxaad ku qorxin kartaa waxaa la yidhahdaa css ayaad marka hadda sawirkaas oo aan yaraynay oo kaleete. marka halkaas ayaan maaragtay kusoo gabagabaynaynaa maxaa la yidhahdaa html iyo maaragtay videoga maxay ahayd subscribe saara iyo maaragtay like iyo share si aan maaragtay casharaan kaloo fara badan aan usoo gelino.